نبي أيوب أو دليل نبي أيوب سديد يتوصلوا بكان هاو قد وظيفي مرنا إلهي طاعات دي سيد دقريق سمدينين ملك نبي رسول والله اختباري تضبطي هبلوضو لها مركلي لغا ودا دلي او نفط لغا ودا قبتي واسكا صبري تضبطي ويلو لها مركلي اسرائيل واسكا صبري باريه تجارتي حوله لها ودن مركلي لغا قاداي واسكا صبري markaasa jirkiisi waliba xanuun lagu riday uska sabray xanuun nooceeya gaadhay waxa la jirkii intuu dhamaaday harigaya lafaha isku dhagan bas markaasa wax ehela waxa uu soo hadhay xaaskiisi markaas qaraabadiisi ku yiraahdeen ama magaalada adigu nooga bax ama anagu aan kaaga baxno may ana inaga fududo inaga tagay buuri ay tukubisay banaanka bay u saartay geed bay hoostiisa dhigtay 18 sano ayaa culimada qaar sheegaan ayuu geed hoos jiifay subaxdii bay ka tagaysay magaaladay u soo noqonayso dadkii u shaqeyn jirtay aqaladay ka shaqeyn jirtay leeyahay wixii mushqaayad la soo siiyay intay soo ugu soo iibiso khubz ayay iyo idaam ayay markaa nabiga ugu keenin jirtay geedka hoostiisa markaas ay ku tiraada ayuubow xanuunkan halka ku gaarsiiyay in ummadii iyo dadkeeni ay banaanka inoo soo tuuraan nabi ducadiisa la aqbala ayaatahe ilaahay ma noo baridaha ka qaada xanuunkan oo dadka ku dhex noqonay markaa buu ku yiraahdaa 70 sano barwaaqo ku soo jirnay ma inta yar baan u adkaysan kara laanahay buu yiri barwaaqadii buu xasuustay isagu waa sunnada ilaahay daa'iman qofka u fiirsada ma inta nicmad aan haysana ayaa badan mise inta dhibaatadu nagu dhacdo ayaa badan midka badan nicmada badan marka anbiyadu nicmaday eegeen mar walba dadna municimka marka way ka xishoonayeen ilaahay way ka xishoonayeen marka abu xaaskiisu ku yiri 70 sano barwaaqo ku jirnay ba muddada yar baan u adkaysan kari laanahay ayadoo magaalada ku maqan maalmaha kamida labadii dad isaga ugu dhaweeday qaraabadiisa ayaa markay u yimaadeen sheeday ka joogsadeen baa la yiri mid baa yiri marka waru dhawaanay meeno xanuunkiisu inuu nagu soo tacaadiyaan ka baqaynaaye malaha dambi wuxuu galay ninkani dadku aynan gelin ereygaas oo marka nabi ayuub uu maqlay kolkay ka noqdeen ayuu gurgurtay dadna meeshuu ku xaajoonay markuu ku soo xaajooday geedkii uu ka yar dhaqaaqo xagga buu uga dhaqaaqay halka buu marka ku ducaystay baa leeyahay ducadiisana waa tan quraanka ilaahay noogu sheegay fi suurati al-anbiya wa idh nada وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أيوب عليه السلام ربي جيبه أرد واقي وربي جيبه لما ناجود أقيل داندرتو مركبه وحيري إله أنا قد بقى سوى قادو إتابته هذا قلنا كون نحرس لك وقلنا حرس بدماته إله نبقى إيقا قاد بويري إلهي مركبه دعاء سوى كأقبلي بالليل هل كي أجوغي باللغور اللوكتا تروح كدفو اركض برجلك سديد يتبصر ننجي فيو حنوسنا أود جركيس ku jirta ee dhulka markuu haraatiye biyo uu kaga keeni kara waa awoodeen yani adagu asbaabtii la kaalay weeyaan anaka biyaha soo saaraynay lugtaada yar dhaqaaji bas asbaabtan adduunyadan arkayna oo dhan nidaamka ilaahay baa ku dhex jira asbaabtan sida jirka bini aadanka ruuxdu ay ugu dhex jirto ayaa asbaabtan adduunka aad arkaysan nidaamka ilaahay baa ku dhex jira marka nidaamka ilaahay isheenu ma qabanayso qudradda ilaahay baa caalamka maamulaysa lugtii buu nabi ayuub saa u dhaqaajiyay dhulkuu ku celiyay labada lugood dhexdooda biyo ka soo baxeen baa la yidhi laba ilood oo biyo ilna waxaa la yidhi ku maydho ilna waxaa lagu yidhi acab ومايلي جركيسي وعادي وعبي على الشيء جودها وحيد حنون كجزر ودم بناك وقصبحي وصوك عبي مركلية حاسك سيبا مقالة كتمدي ويكوريكتي يدو حشونا يسمركا وحيتري وضي أيوب لورنجري وبكانها ومدد دوري تبصنا هلكا عن لجوغي وما أنت أنكتغي مقالة نقوم مقنايا وانو شقتغي ميو دنتي ما دوغاق باقاتي waliba dhalinyarnimadiisina adigu aad kuugu ekaayo formigiisi baad leedahay
markaasuu yidhi ayuubu aniga buu ka yidhi ana ayuub ana ayuub ayuub kii aad kaga tagtay sariirta dusheeda ee jiifay ee kici kari lahaa waa isagii ducaan ducaynay ducadii baa ilaah noo aqbalay buu yidhi istiqaama haddaa dadku diintooda ku sugnaadaan waxaad ogaataa xaaladdu hadday timaado xaaladdu wax daa'ima maaha nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaam qisadiisii baa qur-aanku kuu qayxee dhegayso akhriso oo culammada weydiiyey boqor afartii nin ee adduunka u soo talisay nin ka mida ayuu ahaa weliba mulkigiisu ma ahayn mulkigan bini aadanka keliya ay haystaan mulki rabbaaniya buu ahaayuu ilaahay baa siiyey oo waxaa ka mid a mulkiga nebi sulaymaan khalqiga adduunyada ku nool oo dhan baa la hoos keenoo loo sakhiray dabaysha ayaa loo sakhiray cafaariidda iyo jinka ayaa isaga u shaqaynaysay shayaadiinta ayaa aqalladana u dhisaysay badaha intay u dhaadhacaanna jawaahirtiiyo dhaymanka u soo saaraysay hadalka shimbirahoo dhan buu nebi sulaymaan uu yaqaanay wa qaala yaa ayuha annaasu cullimnaa mantaqa atayri wa uutiinaa min kulli shay inna haada lahuwa alfadlu almubiin وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها بقرتو يدي إلى هالكاغر سمحادو ملين قرآن حد ليس هذا الكيجي لما غشيه war boqor nuucay adduunka ma jira ma soo maray may hadduu soo marayna waa sulaymaan calayhi salaam cid kale maaha nebi sulaymaan nebigaas mulkiga intaa leeg ilaahay siiyeyna ilaahay daacaddiisu ma dhaafin ilaahay dikrigiisa ma halmaamin hal maalin keliya qur-aanka ilaahay ku sheegay fii suurati saad waxaa la yidhi farduhu aad u jeclaa dabcan fardahana waan jecellahay في كل الزمان فرضه هو شيء غالية فرضه سي وكجل جري أيا صدا الله صهور مريء بالليل ساعد إلهي ذكرك وسمين جري وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ساعد حاجر إلهي للمنا جودو وقال لك وريه قال لك الدنبوي أيام وين وقفك مؤمن كقرتا ساعد حاجر إلهي ونوجد يلا دونا يو إن الأدوية أنتو كائمنو masaajidda soo galnoon ilaahay u dhowaano ilaahay la munaajoono saacaddii dikriga uu samayn jiru rabbigii la munaajoon jiray ayaa fardihiisa sidaa loo soo hormariyey faqaala innii axbabtu xuba alkhayri can dikri rabbii xataa tawaarat bilxijaab rudduuha calaya fatafiqa masxan bisuuqi walacnaaq waa ka ilahay qur-aanka ku sheegay fardihii baa la hormariyey wuxuu yidhi fardaha aadi hormariseen waxay iga mashquuliyeen ilaahay xuskii bay iga mashquuliyeen buu yidhi dikrigii aan ilaahay xuskiisa aan qalbiga markaan dikrinaya aan ka macaansanayey ayay iga mashquuliyeene kulligood ii soo celiyey buuhi ii soo celiya kurkaa ka wada jarayaaye waxlii wixii daacadda ilaahay ka mashquuliyey nebiyadu qoortay ka goynayeen inaga salaadan tukanaynay imise jeer baa dukaanadaynu naga mashquuliyeen dukaanadayna weli ma bixinay ninkee baa u bixiyo odhan kara dukaankaasi mar alle markaan salaada galaan ku sahwiyaa ee ilaahay dartii baan u bixiyey ma jira ma dhici kartaa ma dhici karto fardihiisii uu ku xaragoon jiray ee weliba jihaadka uu ku geli jiray ayaa markii sidaa loo hormariyey waxay ka mashquuliyeen oo qalbigiisii ay ilowsiiyeen macaankii markuu ilaahay xasuusanay uu qalbiga ka macaansan jiray ilowsiiyeen markaa buu igu soo celiya ii soo celiyey buu oo maxaa dhacay soo celiya waa la soo wada qabtay qoorta ka wada gooya buu ilaahay bay iga mashquuliyeen daacaddiisii marka haddaad madax tahayna madaxda waxaa la doonayaa inay ku daydaan nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaam mulkiga intaa leeguu haystay xaqi ilaahayna uu ku gutay xaqi bini aadankana uu ku guto uu ku ilaaliyey baa la yidhi xaqi ilaahayna ma dayicin xaqi bini aadanku ay ku lahaayeenna ma dayicin
waxauna ka baxay adduunka isagoo nebi oo mursalo ilaahayna uu raalli ka yahay haka quraanka ilaahay ku sheegay istiqaama marka hadda dabaqad kasto muslimiinta kamida aad ku lug leedahay saa diinta ugu sugnaan lahayd daliil baa lagu hayaa daliil haddaad bukaana tahayna nebi ayuuba u daliila nebi ayuub 18 sano bukaan ahaa geed hoos jiifay